kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan ciid wanaagsan soo dhawaada barnaamijku waa muhiim muuqaalku markuu soo gaaro waxaan ka codsanayaa fiidiyowga inaad like saarto sina share garaysa hadduu alla idmo xaaladii maanta ka dhacday aaga galbeed soo qaadeen nimanka gaxada sanam goor ay ahayd tobanadii waxaan ugu soo qaadan weer saf balaarana waxaan isku dayay goobihii aan ka dhigay jaada galbeed inay soo jabsadaan dagaal qaraar oo waxba la isku reeban ayaa maanta dhex maray ciidanka jabhadda duulaanka ah ee SNM iyo ciidanka difaaca deegaanka SSC qasaaraha ka dhashay dagaalkaas labada dhinac ayaan tooshka ku iftiimi doonaa kuguna soo gudbi doonaa hadduu alla idmo qodobkayga labaad ee barnaamijkana waxaan iftiiminayaa waaraadyo wada meydadka jabhadda duulaanka ah ee SNM ayaa usii tilaabay deegaanka og iyadoo weliba waaraadyadu ay saaran yihiin dhaawacyo dhimasho kaamirada warbaahinta xorta ah waa ay duubtay waaraadyadaasi barnaamijka ayaanu kugu tusi doonaa kuguna soo gudbi doonaa hadduu alla idmo geesi u dhashay beesha dhulbahante oo ka mid ah ciidanka jamaahiirta SSC ayaa maanta iyadoo xabadu socoto waxa uu qaatay calanka Khartoum State wuxuuna ku suray goob ay jabhadda SNM aad uga fogeyn geesinimada wiilka dhulbahante ila soo dhaweeya la helayaa wiil iidoor ah oo calanka Somaliland wada oo dagaalkii oo socda intuu qaado suri kara goob ay jabhadda SNM ku sugan yihiin la kala karti badan barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa hadduu alla idmo nadaafad darrada iyo dugaafada ka muuqata goobihii ay SNM ku sugnaayeen ayaa markii ay ciidamada jamaahiirta SSC gacanta ku dhigeen waxay la wadaageen warbaahinta bal arag meesha ay ku noolaayeen alla siilka hooyadu yaal howlbalay meesha saaxiibtay ruuxaaday barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa goobihii laga qabsaday waxaa kaloo aanan meesha ka miirnayn gaadiidkii gacanta looga dhigay oo ay ku jiraan cabdibilayaal weliba qoriga dhashiikaha uu ku xiran yahay suugag oo warbaahinta loo soo bandhigay gaarigan cabdibilaha ah ee uu ka babanayo calanka Somaliland iyo sidoo kale gaariga suuga ah ayay ciidamada xaqudirarka SSC ay gacanta uga dhigeen waa itus oo itaabsi wax walbana indhahaaga ayaan kugu tusayaa intuu barnaamijku socdana nolosha liidata ee ciidanka jabhadda SNM ay ku nool yihiin ayaan kula wadaagi doonaa raashin loogu talagalay xoolaha ayay ku cunaan godoofarada ay ku jiraan waliba jawaana ayaa loogu duldaadiyaa ma haystaan xitaa maraqii oo biyaha mususha ay ku galaan ama suuliga ayaa looga dhigaa wax uun xoogaa qoyaan ah si ay dhunta u marto gaajo ayay u baktiyeen ama u dhinteen saddex askari oo ka tirsan ciidamada Somaliland ee ku dhumaalaysan iyo godka hareeraysan ee Gooja Cadde qodobadaasi ayaan barnaamijka kugu soo gudbi doonaa magacaygu waa Cabdullaahi Balwaan waxaan ahay wariye soo gudbiya xogta qarsoon aniga shaqadayda haygu heefin soo dhawaada ciid wanaagsan daawadayaasha sharafta leh meel kastoo dunida aad ka joogtaan waxaan idin rajaynayaa idinku caafimaad qaba inaad ku ciidi doontaan si nabadgelyo farxada insha Allah soo dhawaada dagaal qaraar oo waxba la isku reeban ayaa maanta ka qarxay galbeedka wajidaha galbeedka magaalada Laascaanood iyadoo ciidanka jabhadda duulaanka ah ay weerar ku soo qaadeen goobaha ciidanka jamaahiirta difaaca deegaanada SSC jilbaha dhulka loogu dhuftay qasaarihii gaaray waaraadyada iyo meydadka iyo dhaawacyada ay wadaan intaba waan ku soo gudbi doonaa balse intaanan u guda galin markasta oo ay dagaalamaan SNM iyo jamaahiirta SSC waxa geeriyooda saraakiil muhiim ah oo lafdhabar u ah jabhadda SNM maanta saddex sargaal oo muhiim u ahaa ciidankii Muuse Biixi ayaa ku naf waayay dagaalkii tooska ahaa ee maanta jamaahiirta SSC beegsiga iyo waliba mid loogu tooganayay ragga ugu muhiimsan ciidanka jabhadda SNM wararka aan helayo waxay sheegayaan in dhaawac halis ah oo ay dhici karto inuu u geeriyoodo uu soo gaaray sargaal sare oo muhiim u ahaa jabhadda SNM oo lagu magacaabo Doolaal xabadu waxay uga dhacday meel halisa sida aan warbixinta ku helayo waxa dhici karta inuu geeriyoodo hase yeeshee barnaamijkaygu maanta wuxuu baahinayaa dhaawac halis ah inuu soo gaaray Doolaal oo daqiiqad kasta ay dhici karto inuu geeriyoodo sida ay cadeynayaan dhaqaatiirta daweynaya sargaalkaasi waa muhiim ummaddu inay wax badan ka ogaato markasta sababta keenta ciidanka jabhadda SNM saraakiisha in laga toogto waana ku soo koobayaayo shiishahanada jamaahiirta SSC waxay awood u leeyihiin meelo fog inay ka toogtaan saraakiisha muhiimka ah waxaana ka howlgala goobaha jiidaha dagaalka ciidanka jamaahiirta SSC
shiishyahano muhiima oo tababar heer sare ah la siiyey kuwaasoo si toos ah ama halhaleel ah u toogta saraakiisha laakiin su'aalaha kale isweydiinta mudan gaadiid nadiif ah oo aynan ka muuqan wax rasaas ah ayay SNMtu ka carareen sida cabdibilihii aan idin tusayey dhishikihii aan idin tusayey oo cabdibilaha saarnaa suugii aan idin tusayey intaba kuma taalo wax rasaasa calanka Somaliland waa uu ku xiran yahay jabaahiirtuna gacantay ku dhigeen askariga dhulbahanto markuu soo ag istaago boqol isaaqa kobahay ka cararaan maba dagaalamaanba runtaan idin sheegaya maba dagaalamaanba waxaadna ka garan kartaa wiil dhulbahantaa oo calanka qaatumo wata ayaa hormaraya ciidan isaaqa oo weliba SNM ah oo Muuse Biixi daacad u ah oo xabada ridaya wiilka baqi maayo calankiisu wataa laakiin kuwan gaadiidkii bay ka cararayaan ma nin dhashii ka ridaya oo markuu arko askariga dhulbahante ama askariga SSC dhashii ka cararaya midka suuga ridaya markuu arko ciidanka jamaahiirta cagihiisu ku baxsanaya darawalkiiba iska tuuraya gaariga waa waxyaabo la yaab leh oo intii aad ummadda Soomaaliyeedna marqaati ka yihiin oo gaadiidka la soo bandhigayo oo hadda aragtaan iyo waliba gaadiid hore loo soo bandhigay intii uu dagaalka socday gaadiidka wax dhibaato ka muuqda yaraatay balaha markaad weydiiso ciidanka jamaahiirtuna waxay leeyihiin darawalkii isagoo cararayo gaariga ka degtay gaaneerigii dhishii ka riday isagoo cararayo degtay marka taa waxay ku tusinaysaa bitiga iyo dagaalka in la kala sareeyo markasta SNM waxay yiraahdaan waa been dhibaatana ma soo gaarin maanta waxay ahayd maalin ka xanuun badan maalmihii SNMta kadib markii dhigta dhiiga loo daray wiilal yaryar oo aad uga naxay wallahi wiilal yaryar ayuu Muuse Biixi hooyooyinkii dhalay ka soo kaxaystay maanta dhigta dhiiga loo daray ciidanka jamaahiirta SSC-na noloshay ku gubeen nolosha gaari dhan oo ay saarnaayeen oo waaraad ah adigu gaariga dhishikaha oo ay dhinacyada ka saarnaayeen wiilashii dhalinyarada ilaa ma awoodaan xitaa inay gaariga ka boodaan sabana qabsaday mar qura ayuu gaarigii ololay waxaan arkayay ayagiyo go'ay muuqaalkaanan lala wadaagi karin bulshada oo Facebook iyo YouTube kan ogolayn ma ahanay siday u jarjarmeen waad yaabaysaa taasna waxay ku tusinaysaa dhibka ugu weyn ee maanta gaaray iyo jabka muuqda oo ay waliba aad u baaba'een ciidankii da'da yaraa wiilashii yaryaraa oo Muuse Biixi dagaalka afka u galiyay dhinaca kale saraakiisha ayaa qaarkoodna dhaawac yahay qaarna way geeriyoodeen saddex sargaal waa geeriyoodeen midka dhaawaca waxa la yiraahdaa Doolaal waa nin caana oo lafdabar u ahaa jabhadda SNM muhiim ayuu u ahaa ciidanka dhigtaana dhiiga loo daray geesiyada jamaahiirta SSC warbaahinta waxay kula hadleen furimaha dagaalka intay xabadu socotay mar walba dadku waxay arkaan waaraadiyo iyo ambalaasyo meydad la cararaya oo waliba maantay ugu dambeysay la arkayay tiradii ugu badnayd oo meydad iyo dhaawacyo isugu jira oo waaraadkii lagu tuuray sidii xooliyo kale daadsan la yaab waxa la ah markasta xabadu bilaabato sidan ayay SNM2 ugu baaba'ayaan dagaalada oo aad u jeedaan meydadkoodii loo daadgureynaya maxaa loo waayay dhinaca jamaahiirta SSC meydad iyo waaraadyo daldalaya maxaa loo waayay taas micnaheedu waa la kala karti iyo dagaal badan yahay markaad eegto oo aad baaritaan samayso oo aad isku daydo xitaa in aad xogta hoose ogaato waxaad arkaysaa in dhaawacyada iyo dhimashada dhanka jamaahiirta SSC ay aad u yar yihiin markasta dhinaca jamaahiirta SSC markay sida dhimashada iyo dhaawacuna uu yar yahay waxaad dhanka kale arkaysaa waaraadyo meydad iyo dhaawacyo daldalaya ilaa og ilaa ilaahay baan ku dhaartay ilaa burco saasay isku haystaa isaaqow dagaal ma taqaanaa war isaaqow dhulbahanta dagaal kuma gaartaan war xabadii waad ku baaba'deen war caruurtiinii waa la edeen waa baaba'een waxaa iga tala ah go'aanka ay qaateen jamaahiirta SSC aan idiin sheegayaa mid idinkayda kamid inuu badbaado looguma talagelin waad ku go'aysaan ugu dambayna dhulbahantaa soo haraya waxaan aad ula dhacay taatikada dagaalka ah in dhegta dhiiga loo daro dhammaantood aad aan ula dhacay wallahi dagaalkii baa la gelayaa waa la laynayaa way laabanayaan waaradyada iyo meydya iyo dhaawacyada wada kuwa cusub baa la keenayaa waa la laynayaa bartaas waxaa ku baaba'aya marka wiilashii isaaq waxaana kordhaya colaadda u dhaxaysa dhulbahanta iyo isaaq Muuse Biixiyow isaaq meelay galaan bay way doonaane armay taladu wanaagsan tahay
inaad ka hartana hadda ay habboon tahay gul iyo gobonimo ay caawa u jiifaan ku ciidayaan jamaahiirta SSC taasoo micnaheedu yahay in libinta ugu weyn ay maanta ka gaareen dagaalkii dhacay waxay ku soo kordhay insha Allah barnaamijyada soo socda ayaan kuugu soo gudbin doonaa intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waa Cabdullaahi Balwaan oo idile meel kasta oo aad joogtaan ciid wanaagsan